waxaa joogay madasha 20 xubnood oo kamid ah 25 xubnood ee guddiga ah sida xeer hoosaadka guddigu qorayana 2 meelood oo 3 meelood inay xaadir ku tahay quorumka ayaa ah sida sharciga ah si sanduuq ah oo qof waliba uu codeeyay ayaa ay ku dhacday. marka 25kii xubnood ee loogu talagalay inay noqdaan guddiga doorashooyinka heer qaran yaa adiga ku doortay 20 ka mid ah maadaama 5 maqan tahay masaasba 20 baa codeeyay oo ku sugnaa 17 ka mid ah ayaa aniga i doortay 3 ka midana tartamihii kale ee iga soo horjeeday ayay u codeeyay. 25 xubnood weeyaan heshiiska in guddigaasi uu ka koobnaado waa guddiga doorashooyinka ee heer federaal 20 baa joogta 5 maqan xagee ku maqan yihiin yayse ahayd inuu soo magacaabo. caadiyan guddigani 25 xubnood aan ku kala sheego 6 maamul goboleed oo Somaliland, Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa min 2 xubnood soo magacaabanaya sida heshiiskii uu ahaa guddiga wadaagga qaran. dowladda federaalkuna 13 xubnood bay magacaabaysaa saasay 25 xubnood ku imaanaya. Somaliland waxaad ula jeedaa xubnaha gobolada waqooyi matalaya ilaan waan ognahay Somaliland guddi ay soo dirsatay kamid ma ahan guddigan Muqdisho joogay. haddii 4 xubnood ee Jubbaland iyo Puntland meesha ka maqan yihiin doorashadaadu xalaalnimadeeda soo wax la iskama weydiin karo. maya waxba la iskama weydiin karo. doorashadu sida xeer hoosaadka guddiga ku qoran waxaa caadiyan rasmiya in 3 meelood oo 2 meelood ay joogto. xubnaha naga maqanna waa shaqo ahaan iyo hawl ahaan waa dad aan isla soconno oo annaga khilaaf dhexdeeda ah kuma kala maqnin. khilaafka kore ee dhinaca siyaasadda ana waa waxaan kolley dawal hadalkiisu ay socdaan oo annaga naga koreeya. laakiin guddigaaba la haystaa guddigan adiga hadda ku doortay ee xubintana aad ka tahay iyo Jubbaland iyo Puntlandna ka goos haystaan madasha musharaxiinta madaxweynenimada u tartamayana ay diidan yihiin iyo siyaasiyiin kale oo doorashada qayb ku leh. marka haddiiba idinka su'aal idin dul saaran tahay in doorasho aad qabsataan iyo inaad shaqo bilowdaan soo amuur wax la iska weydiin karo ma ahan saaxiib. halka shaqta aan ku saxo guddigan Puntland iyo Jubbaland ma diidana xubnahoodii 25 xubnood ee ay soo magacaabeen ayay ka mid yihiin. xubnaha mucaaradka misalan adiga hadda sheegtay waa anaga mucaarad iyo muxaafid ma kala lihin guddi madax bannaan baan nahay waxaanan u taaganahay inaan labadoodaba matalo waxaan u garqaybinaynaa waa dad Soomaaliyeed. ciro waxaan ku weydiinayaa mucaaradka iyo qolyahan saluugsan xubnaha guddiga waxay farta ku fiiqayaan shakhsiyaad xukuumadda u shaqeeyo shaqaale dawladeed ah qaarkood waxaa la sheegayaa inay ciidanka ka mid yihiin. dadka idin duraya ee sheegaya in xubnahan aysan cadaalad ka noqon karin doorasho la rabo inay dhex noqoto. dadka na mucaaradaya adigu aad sheegaysa anigu weli annaga cid toos horta noogu timi maanan arag oo kan iyo kan idin kaga cabanayna waana dad Soomaaliyeed waxaana qorshahayadu yahay in cid kasta oo Soomaaliyeed aan dhex u nahay aynan aamini karaan oo aan u garqaybin karo. waa marka shaki iyo mala awaal de wax laguma dhisi karo cabirsaaq oo waxda haddaynu nidhaahno hadda beriya saa dambe iyaba wax shakiyo saana imaanayaan taasi waxaan umanayaa inay waaqiciga ama caqliga caadiga ah ka baxsan tahay. goormaad bilaabaysaan shaqadii iyadoo la ogyahay in daahba jiro oo jadwalkii la dhaafay. horta waa run waa sax arrimo farsamo oo horey u jiray baa jiray in la raadiyo sidii ugu hufan ee loo hawlgeli lahaa. annagu qof kursi raba ama 2 qof oo kursi raba inaan u kala eexano yani qiyamna siinayaan ma jiro